Assalaamu calaykum. Baryahan waxaa batay dad badan oo bulshada u soo bandhigaya waxyaabaha noloshooda gaarka ah. Marka walaal, waxaan kuu soo gudbinayaa qiso dhacday oo loo baahan yahay in aad ku cibro qaadato. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe inoo saar siduu kuu soo gaaro barnaamijyada ka baxa channelka. Mahadsanid. Ninka ayaa maalin dhexdaas ah dadka kula wadaagay boggiisa Facebook-ga sawir uu la sawiran yahay faras uu lahaa. Wuxuu ku faanayay faraskii cajiibka ahaa, midabadiisa yaabka leh, iyo sida uu yahay faraskii farasyada. Ma taqaanaa maalinta labaad waxa ku dhacay? Dad aad u badan baa arkay, qaarba si bay ugu heleen. Qayb ayaa ishooda raacday, kadib halkaasi ayuu ku waayay faraskiisii. Kolay dad badan ubadkooda quruxda badan iyo noloshooda gaarka ah la wadaagaya kumanaan qof way ugu filan tahay tusaale arrinkaas. Fariinteydu waxay ku socotaa qof waliba oo carruurtiisa soo sawira, qof waliba oo cuntadiisa soo sawira, iyo qof waliba oo safarkiisa iyo maalkiisa soo sawira siduu bulshada ugu soo bandhigo. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, ummadeyda waxa ugu badan ee u dhimanayso marka laga reebo qadarta Allah subxaanahu wa tacaala waa isha. Fadlan haddii uu ku cajabgeliyo fiidiyowan, like inoo saar si ay inoogu noqoto dhiirigelin, siina share garee si ay qof waliba ugu noqoto tusaale.